sidan la socono shalay labada xisbi ee mucaaradka ahi waxa ay warqad u qoreen wasaaradda arrimaha gudaha ay ku ogeysiinayaan in maalinta Khamiista 12 bisha uu jiro isu soo bax weyn oo salmiya oo shacbiga reer Soomaaliland ay isugu soo baxayaan 6 gobolba hadii la yiraahdo insha Allah si ay dareenkooda u muujiyaan xukuumadana ugu sheegaan fariin ah inay shuruucda wadanka ku soo noqoto doorashooyinka wadankana ay qabato oo aan xilka wadanka xoog iyo jujuub lagu haysan karin waxa wasaaradda arrimaha guduhu ay saaka warqad u soo qortay labada xisbi ay ku dalbanayso kulan ay ku yimaadaan maxaan ku raahdaa wasaaradda arrimaha gudaha harta warqadda aanu anagu qornay waxa la yaalo wixii sharcigu naga rabay wixii baadil iyo kibri waa halkiis laakiin waxa la yaalo wixii sharcigu naga rabay shacbiga Soomaaliland waa u cadeynaa cid walbana waa u cadeynaa waanu marnay dariiq kasto oo sharciga Soomaaliland u yaala iyo shuruucdeenu ay naga rabtay warqadaas aan ku taala deedkii baanu sheegnay halkii aanu doonaynay inaanu ku qabanayna ayaanu sheegnay sabab aanu kulano oo la isugu yimaado oo maxaan ku raahdaa ay dadka u warwareejiyaan run ahaantii ma jirto laakiin taa waxa ka sii daran iyagoo warqad soo qoray oo leh aynu kulan isugu nimaadno labada gudoomiye xisbiyada mucaaradka ka dalbanayna kulmaan ay haddana maanta waxa ay bilaabeen inay dadkii shacbiga ahaa iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xisbigaba ay xirxidhaan fariintaan u direynaa waxa weeyaan kulli dadka inta xiri kartaan xira jeelasha Hargeysa oo dhan buuxiya mandheero buuxiya siyaad barraa jeelu buuxiyo wadan ku haysan kari waayo ku xukumi kari waayo wadanka xoogna kuma haysan kartaan dad xirxidhaana kuma haysan kartaan doonista dadkuna xarig iyo cabrin iskuma taagayso ama aqli kale idin la iman ama halka Soomaaliland ku wadaan waynu arki doonaa hadii la hayro insha Allah waa mahadsantiin